dadka iyaga ah badan isu imanaya marka biyay u baahnaan doonaan, ceelal ayay u baahnaanayaan, zamzam ayay u baahnaanayaan. ya biyo waxay u baahnaan doonaan markay cabbaan, markay cabbayaan wax walbo ay niyeystaan ilaahay uu siinaayo. biyaha ay cabbaayaan wax walbo ay u niyeystaan marka ay cabbaayaan. biyaha marka loo baahan yahay wuxuu ku hanuuniyey cabdulmuطalib, rasuulka awowgii ayaa wuxuu tusay oo uu ku hanuuniyey halkii uu ku aasnaa ama uu ku aasmay ceelkii zamzamka ahaa ee nabiyullaahi ismaaciil uu qoday. ceelkii baa la tusay, ceelkii buu diyaariyey, ceelkii buu qoday, ma aragtaa biyihii buu diyaariyey, biyihii nadiifka ahaa. mar allaaliyo markii uu diyaariyey ayaa waa ka hor intaanu dhalan rasuulkeena suuban salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi. intaa dabadeed wuxuu u baahday cabdulmuطalib beydkan dad ilaaliya. dadkan qureyshyada qura maaha, wiilal buu u baahday. ubadna ma aanu lahayn, wiilal garabkiisa istaaga oo xoogan, muruqyo waaweyn oo garabkiisa istaaga, beydkan difaaca, dadka u adeega, garab gala, hawshaan ma aragtaa dacwada ah la wada ayuu doonay. ilaahay buu marka ka baryey, wuxuu yidhi ilaahow 10 wiil baan kaa codsaday, 10 wiil haddaad isiisid oo aan helana waxaan gowracayaa midkood. waa nadir buu galay marka, 10 wiil haddii aan helo inaan mid gowracaayo oo aan qalaayo, ilaahayna aan u qalaayo, waa shukri aan ku shukrinaya alle. ilaahay wuu u oofiyey. ilaahay wuxuu siiyey cabdulmuطalib 10 wiil oo uu ugu yaraa cabdullaahi. cabdullaahi aad buu u jeclaa, aad iyo aad wiilashoo dhan buu ugu jeclaa. wiilashii waa la helay, waa kuwaana iyagoo waaweyn, garabkoodii bay galeen, beydkii bay difaaceen, ma aragtaa hawshii xujaajtii iyo wixii oo dhan bay la qabteen. marka ilaahay maadaama uu oofiyey arrinkii, waa inuu isagana ballantii oofiyaa. maxaa wacay caadooyinka wanaagsan maxaanu niri oo ay lahaayeen carabta maa qabla alislaam, wuxuu ahaa inay oofiyaan ballanta. waxay ballan ku qaadaan ama nadir ku galaan inay oofiyaan. waa kana cabdulmuطalib oo aabbaha quraysh ahaa, markiiba wuxuu yihi waa inaan gowracaa. ay qorituur baa marka la sameeyey, yaa la gowracayaa, yaa nadarka lagu fulinayaa, yaa ilaahay loo hibaynayaa. isagoonan dooranin, si cadaalad ah, dimuqraadiyad ah ayaa loo qori tuuray. markiiba waxaa soo baxay cabdullaahi, waa lagu celiyey cabdullaahi, waa lagu celiyey cabdullaahi. haddana cabdullaahi waa wiilkii uu ugu jeclaa, laabtuu uga yaalaa, indhuhu ku qabowsada, indhihiisaa ma aragtaa indhuhu ku qabowsadaa. see loo gowracayaa cabdullaahi cunugii da'da yaraa? allah muxuuse sameeyaa? ma ballantuu ka baxaa mise wiilkiisuu ma aragtaa uu gowracaa cabdulmuطalib? yuu gowracaa? muxuu sameeyaa? arrinkiibaa ma aragtaa uu garan waayey. markii dambe ilaahay wuxuu ku hanuuniyey inuu cunugii gowraco. caadadooda ahayd, dhaqankooda ahaa ballanta inay oofiyaan. markiiba wuxuu doonay inuu cunugii gowraco. mindidii markii uu afaystay oo uu soo qaatay oo uu qoorta saaray ayaa quraysh ku soo oroday raggii. dadku waa wada arkayaa, ballanta in la oofiyaana way ka wada siman yihiin. markiiba waxay usoo ordeen, waxaa la yidhi warniyahow aabbaheennaa tahay, hogaamiyaheennii baa tahay, odagii waxaa tahay quraysheed, warniyahow wixii maanta aad jidaysid ya waxaan ka baqaynaa inay caado noo noqotee caadada ilmaha la gowracaya nagadaa, yaanay caado noo noqonin ya si kale arrinta aan u furdaamina. jooji cabdulmuطalibow, ha gowracin wiilka, jooji ya jooji. markaa kadib waxaa bilaabanaya in aan ilmaheenna annagana aan gowracno, oo qof walbaaba nader markuu ilmaha u galaba uu gowraca. niyow hanoo bilaabin caadadan xun. waayahay maxaan qabtaa? maxaan sameeyaa? ballantii miyaan ka baxaa? mayee u kaadi. islaan curaafad ah, sixiroolo ah, kaahinad ah oo ay meelaha ku ogaayeen, waa caadooyinka xuxuma oo ay lahaan jireen weeyaan ya
in ay jiraan dad qaybka ilaahay ku haysta, dad qaybka ka soo warrama, dad waxa ka dhacaya cirka 7 samo korkooda dad raba inay sheegaan oo faraha la gelaya. maxaa waa caadooyinka xuma oo ay lahaayeen, waa islaamaha balaayada intay shidaan ma aragtaa ya xaarka dhurwaaga intay shidaan dhahaya waxaas yihiin waa 2 shilin ka qaadanayaan, markaasay ku leeyihiin adiguna milyan baad helaysaa. milyanka isaga muuqaato adduunka oo dhan baad milkinaysaa buu ku leeyahay, adigana wuxuu kaa rabaa 10 kumi ama 10 shilin buu kaa rabaa, oo adduunku uu adigu ku mulkisiinaya muu asaga mulkiyo. ay markaas anagana aaminayna qofka u tagaa 40 naag sixiroola ama qof sixiroola ama ma aragtaa dadkan xaararka dhurwaayaha shidaaya 40 salaadood ilaahay ka aqbali mahayo. haddii uu rumeeyana waa u tegidii keli, haddii uu rumeeyana wuxuu ku gaaloobay oo uu ka baxay diinta islaamka. Muxamed wixii lagu soo dejiyey oo qur'aanka ah, diinta ah, islaamka ah ayuu ku kufriyey ayuu leeyahay rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. iska ilaaliya inaad u tagtaan dadkan wax fiirfiiriya xaarka dhurwaaga meelaha ku shida, iska ilaaliya. haye marka naagtii bay u tageen, naagtii baa adigu akhiiran waxay usoo sheegtay oo ay tiri idinku diyadiinu waa imisa, qof haddii waad dishaan ama aad iska dishaan imisaad kala qaadataan, diyadiisuse waa imisa. waxaa la yidhi waa 10 neef oo geela. waxay tiri 10 neef oo geela kaxeeya, cabdullaahina hala kaxeeyo, ilaahiini hubal ahaa u taga. waa ilaahi ay ku xugantami jireen weeyaan marka ay kala xukumayaan ama ay isxukumayaan, dastuurkii ay lahaayeen hubalkaas weeyaan, agtiisaa la tegi jiray, isagaa dadka kala garsoori jiray. waa dhagax meel iska yaalla oo aan hadlaynin, wax maqlinin, waxna dhibeynin, waxna taraynin ayaa lagu xuguntamayaa. ilaahaasayt hortiisa 10 neefoo geela geeh, cabdullaahina geeh, halkaas quraci iyo ma aragtaa geetuurkii halkaas ka samee. markaasaa waa la tuuray, qorituurkii waa bilowday. qorituurkan waxaa loo qorituurayaa 10 neefoo geela ah iyo cabdullaahi kii la qali lahaa. markaasaa la tuuray. markii la tuuray waxaa haddana soo baxay cabdullaahi in la gowraca. haddana diyadiisu waa imisa, waa 10 neef, waa lagu kordhiyey 20 bay gaareen. haddana waa la tuuray 30 cabdullaahi baa soo baxay. waa in haddana cabdullaahi lama gowracayo, diyo waa in laga bixiyaa 10 neefoo geela. 30 sidii loo waday ilaa iyo 10 jeer cabdullaahi baa soo baxay. cabdullaahi ayaa soo baxay ilaa 100 ay gaareen. 100 neefoo geela iyo waxaa ishor fadhiya cabdullaahi kee la gowracaa. markay arkeen qurayshtii in aanay qorituurkan faa'iido lahayn, qorigana uu cabdullaahi jecel yahay, ayaa waxay ka baqeen cabdullaahi in la gowraca. laakiin waxaa ku adkaystay in lasii qorituura cabdulmuطalib. 3 jeer ayaan haddana ku celinayaa buu yidhi. ilaahay buu isagana baryayaa markaa gacmaha kor u taagan. markaasaa dadkii meesha jooga qorituurkii bay sameeyeen. markii 11aad waxaa soo baxay geeli. mar labaaday tuureen haddana geeli 100kii. mar 3aaday tuureen geeli baa haddana soo baxay 3 jeer. markaasay farxeen. cabdullaahina intaas ilaahay, cabdulmuطalibna intaas ilaahay buu baryaayaa. markaasaa 100kii neefoo geela ayaa lagu furtay. cabdullaahi baa la furayaa, waa rasuulka aabihii. waxaad ka arkaysaa marka qur'aanka aayado kale oo sheegaya in aabihii ka weynaa ismaaciil in la furtay oo sidoo kale la gowrici rabay. ibnu dhabiixayn ya labadii la gowrici rabay ee ilaahay uu furtay wiilkoodii محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف صلى الله عليه وسلم. واتنقوليه وفديناه بذبح عظيم. نبي الله إبراهيم مركي أودوني إسماعيل إنه قورعه يا رياض انتو كو أركي إساقو قورعايا مركو أبان لغي ويلكي سنة أو يري آبو وح إلهي أو كو أمري إلهي وحو كو أمري سماه أنيقنا
waan sabri doonaa oo qof sabra inaan ahay baad ogaan doontahay oo uu sabray labadoodiiba intay hoggaanka ilaahay u dhiibteen arrintii ay ku guulaysteen markuu intuu beerka kaga istaagay uu damcay inuu gowraco waa kii wankii ma aragtaa lagu furtay wafadaynaahu bidibxin cadiim maantana waa kan aabihiis ayaa la gowracayaa cabdullaahi 100 neef oo geela ayaa ilaahay ku furtay haddana allah qisadaasna waxay ahayd qisadii lagu furtay aabihii intaasoo dhan maxaa la diyaarinayaa dhalashadii rasuulkaa soo dhow rasuulkaa loo sii gowrxaaraya waxaasoo dhan waxaa la yidhahdaa irhaasaad weeyaan oo waxyaabihii ma aragtaa horudhaca u ahaa dhalashada cajiibka ah ee ka dhici doonta jaziirat lcarab cabdullaahi markiiba isagoo dhalinyaro ah ayaa cabdulmuطalib wuxuu doonay inuu u guuriyo wiilkiisa qabiilkaa la yidhaahda ayuu u kaxeeyey bani zuhra ya waa qabiilka aamine ay ka dhalataye halkaasuu uga doonay markaasaa waxaa la soo siiyey aaminah binta wahb gabadhii ugu qiimiga badnayd caalamka markaa noolaa ee jiray waa gabadhii keliya ee lagala baxaayey allah maxaa wacay khayru khalqi illaahi ayay dhali doontaa gabadhii baa la soo siiyey gabar sharaf badan oo qiimi badan oo run badan oo asturan oo qabiilka tii uu ku dhaaranayay caalamkao dhan xabadii jirtay weeyaan waa gabadhii keliya ee lagala baxayey ayaa la soo siiyey cabdullaahi ibni cabdilmuطalib aroos waxaa loo dhigay aan caalamka hore uga dhicin qurayshna waxay isugu timid arooskii ugu horeeyey oo noociisoo kale ka dhaca caalamka markaasaa farxaddii meel walba caalamkii ay daday waxaa isku darsamay labadii farxadood farxaddii uu ku badbaaday cabdullaahi ee 100 neefa uu ma aragtaa lagu furtay iyo farxaddii guurkii uu guursaday aamina bintu wahb markaasaa caalamkii oo dhan la isaga yimid makaa meel la istaaga la waayey arooskaa farxadda leh ayaa dhacay xoogahaa markii arooskii intuu dhammaaday bilooyin la joogo ayaa haddana farxaddii sii korodhay khaasatan reerkan cabdulmuطalib ayaa haddana farxaddii ay sii korodhay kadib markii ay aamina u sheegtay ma aragta cabdullaahi ay u sheegtay in ay xaamil tahay oo ay uur leedahay cabdullaahi baa aad u sii farxay cabdulmuطalib baa aad u sii farxay quraysh oo dhan baa sii farxday farxaddaa qiimiga badan ee caalamkii jaziirat lcarab oo dhan daday cabdullaahi ma aanu ogeyn farxaddaa inuu dhamaystiran doono waa uun bilow weeyaan inuu dhamaystiran doono oo uu arki doono inankaa uurka lagu sida iyo in kale ma aanu ogeyn markiiba quud baa loo baahan yahay raashin baa loo baahan yahay dee waxaa waaya qofka markuu guursado dambiishii baa daba taalla gacantaa loo horsanayaa masruuf iyo biil baa laga rabaa waa inuu marka shaqeeyaa oo uu lugaha isdaba dhigaa markiiba wuxuu u safray shaam waa kana awrkiisiibuu xidhxidhay shaam ayuu aaday soo noqodkiisii ayaa wuxuu ku xanuunsaday madiina isagoo soo maraaya halkaasaa ilaahay ku oofsaday aaminana waa uur 2 bilooda markaa iyada ah markuu cabdullaahi madiine uu ku dhimanayo waa uur 2 bilood allah aamino maxay ka og tahay maxay ka og tahay halkaasaa uurkii ay siday muddo 9 bilood ah 9 bilood ayay siday aamino uurkaa cabdullaahi waa uu dhintay sagiirkan yaree soo bixi doonana wuxuu soo baxayaa bilaa aabe agoonnimuu ku soo baxayaa waa kuma ninka soo baxaya xaaladda lagu jiraase waa tee ayib qisata asxaabi ilfiil weli uurkii weeyaan aamino uur bay leedahay weli moxamed ma ayan dhalin maka ayaa waxaa lagu wadaa diyaariskii loo diyaarinayay in ay qaabisho oo ay soo dhoweyso gacmahana u fidiso sagiirkaa yarka ah khayru khalqi illah moxamed ibni cabdillaahi ibni cabdilmuطalib ibni hashim ibni cabdi munaaf salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi